waxaan fursad u helay oo khadka telefoonka ku jira cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ku sugan magaalada addis ababa ee dalka Ethiopia kadib markii laga soo daayay xabsi uu ku jiray in ku dhow muddo sanad ah. waxaan ka wareysan doonaa sidii looga soo qabtay dalka Soomaaliya, xarigiisii iyo sii deyntiisiiba. cabdikariin, soo dhawow, aad baan kaaga mahad celinayaa fursadan qaaliga ah ee aad siisay iyo waraysigan aad iga ogolaatay. wandhawahay aad iyo aad baan salaamaya walaalayaal. su-aashayda ugu horeysa cabdikariin, muddo ku dhow sanad ayaad xabsi ku jirtay, ugu dambeyntiina waa lagu soo daayay. farxad noocee ah ayaad dareemaysaa kadib markii aad xorriyadaada dib u heshay cabdikariin muuse? wala waad mahadsan tahay. farxadda dadkaydu ay heleen iyo farxaddaan helay isu dheelitiran yihiin. sidaad u farxdeen baan ugu farxay inaan mar kale dib ugu soo laabto hawada. anuu muddo 10 bilood xabsi ku jiray aan helo xorriyadaydi aad baan ugu faraxsanahay. waktigan aan joogo wakti ku habboonna way ahayd runtii. marka dadkayga iyo aniga iyo guud ahaan waxay dhammaanteen inoo wada tahay farxad. cabdikariin, sida aan la soconno dalka Ethiopia waxaa ka dhacaya isbedelo waaweyn oo uu hormood u yahay amaba uu horkacay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. haddaba adiga sii deyntaada kaalin intee la-eg buu ku leeyahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia? mase jiraan dawlado kale ama shakhsiyaad iyaguna gacan ka geystay in aad xorriyadaada dib u hesho? horta sii deyntayda alawal ilaahay waa ku mahadleh. ilaahay baa suuro geliyey oo qadar ilaahay baa marka horena aan ku galay xabsiga iyo gacmihiisu kaydiiyey. markii dambena ilaahay subxaana watacaala ayaa iga soo daayey. intaa kadib qofka soo deyntayda lahaa in la ifasaxo xorriyadaydii laysiiyo ra-iisul wasaaraha, isagaa laha cid kula talisay iyo cid kaleeto oo la kaashaday iyo cid ka codsatayna midna ma jirin. isaga ayaa iska lahaa. qabashadaydiina alla qadartibay ahayd. soo deyntaydana sidoo kale ilaahay unbaa awoodan iskale oo isoo daayey. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha waa qofka keliya ee hawshayda sidan u qorsheeyey ee go-aamiyey iyo ogolaaday xorriyadaydii dib igu soo celiyay. waxaana la kulmay shalay taariikhda 30 bishan hadda 6 ay ahayd. marka cid kale oo u kala tashaday iyo cid kale oo la qorshaysayna ma jiro. muddana isbedelkan wuu waday. waxaana lahaa baan filayaa qofkii ugu dambeeyey dhinaca ururka ogonlef xabsiga kusii jiray yaan ahaa. marka hawshaas sidaas ay ra-iisul wasaaraha qorshaysay qorshayaashiisiibana kamid ahay. waxaana nahay qofka uu la kulmay si toos ee Soomaaliya uu kala hadlay arrimaha masiirka ummadda iyo gobolkaba. cabdikariin, waxaa jira markii lagu xiray ummadda Soomaalidu meel kasta oo ay joogaan aad iyo aad bay arrintaas uga dareen celiyeen. waxaana jiray fikiro kala duwan oo mararka qaarkood jihawareer ka dhex abuuray Soomaalida. cabdikariin, yaa ka mas-uula xarigaagii oo loo haystaa ama loo qabsanayaa? sideese ayuu u dhacay xarigaagu? waad mahadsan tahay. xarigayga dee waxaa iska lahaa qoladii maamulkii farmaajo. waxaa hawsheeda gacanta ku hayay hay-adda nabad sugidda oo sanbulis madaxda ka ahaa. kaalxaya iyagaa iga soo qabtay. 3 habeen bay igu hayeen. dhibaato badan bay runtii igu geysteen. markaa kadib anigoo ka teenadaysan daduuban bay xamar ii soo qaadeen. midka jilacow baa laigu riday. 3 habeen baa laigu hayay. 22 bishii agosto ee sanadkii hore ayaa badal salaad subax midka laga soo saaray anigoo indhaha ka xiran gacmahana ka xiran. sidaasna laigu wareejiyey ciidamada Ethiopia. muddadii aan xidhnaa oo 6 beri gudaheeda ahayd Soomaaliya oo 3 xamar ku xidhnaa 3 aan gaalkacyo ku xidhnaa. waxay la tahay mas-uuliyaadku way ogaan kareen sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha nabad sugidda iyo cid kale oo ka agdhaweydba. marka siday uga tashadeen iyo go-aanka qaabkay u wada qaateen ma garan karno. laakiin mas-uulka ugu dhow gacanta igu haya ciidankiisiga hayay maamulahaya hawsha waa taliya nabad sugidda sandareeshi. madaxda kalena dee waxaan filayaa la qiyaasi karaa inay taladu ka dhaxayso. laakiin mid walba miisaanka doorku ku leeyahay bal waan ogaan doonaa insha allah. muddadii aad xabsiga ku jirtay kasoo bilow gaalkacyo ilaa iyo Ethiopia, wax jir dila oo weyn oo lagu geystay ma jiraan cabdikariin? wax iga muuqdo oo weyn oo saameyn ugu yeeshay ma jiro. waxyaaba yaryar way jireen oo dee
iga gaaray xagga dhinaca gaalkacyo qabashadeedii markii ugu horreysay laakiin intaan kusoo wareegay etoobiya wax dhib ah oo jibdil oo gaaray ma jirin wax jibdila oo ka badan dee qaabka aan u xidhnaa iyo sida la ii dhaduubayay iyo sida la ii katiinadeynayo iyo sida la ii gadaduubayo iyo waxyaabahaas ihaanadaas wax ka badan ma jirin marka taasna waxa la qadaray un bay ahayd haddana waxaas oo dhan waan ka fiicanahay maskax ahaan iyo mooraal ahaan iyo caafimaad ahaan jir ahaan all waan fiicanahay xaaladeedu aad bay wanaagsan tahay waxaas oo dhan ilaahay waa caafi aada iyo aad cabdikariin haddii hadda lagu soo daayey oo banaanka aad joogto magaalada addis ababana aad ku sugan tahay qorshahaaga mustaqbalku muxuu yahay oo ku xiga waxyaalaha aad is leedahay waad ku dhaqaaqi doontaa maalmaha soo socda iyo waktiga xiga maalmaha hadda waxaan ku diyaarin doonaa insha allahu tacaala safar aan sii mari doono nairobi markaa kadib waxaan soo booqan doonaa shacbiga soomaaliyeed iyo golayaashiisa oo runtii qabashadeydii xaraaladooda meel aada u badan ay gaadhay garab istaaga hiil iyo hooba anigii ilmahaygii iyo ehelkaygii iyo qadiyadaba runtii aada u garab istaagay waxaana nahay walaalka soomaaliyeed oo si fiican loogu hiiliyey waxayna dadka soomaaliyeed xaq ugu leeyihiin insha allah inaan intaan gaari karana soo booqdo lasoo maaragtay farxadda la qaybsado sidaan dhammaantaan ufaraxsannahay ufaraxsan yihiin marka insha allah waan lasoo qaybsan doonaa inahaasaan soo hormari doonaa haddii aa la yidhaahdo gobolada intii aan ka gaari karo intaan soo salaami karo intaan dadka soomaaliyeed aan usoo taanageyin karo inahaas oo dhan waan marmari doonaa insha allahu tacaala safarkayguna wuxuu ka bilaaban doonaa addis ababa nairobi ilaa ina soomaaliya intaasaan mari doonaa wixii intaa igu xigana waanu arki doonaa haddii aa la yidhaahdo wuxuu noqon doonaa socod booqasho iyo walaalaha soomaaliyeed inaan runtii qola walba aan halkooda ugu tegi doono wixii suuragal ii noqdo ilaahay waafaji cabdikariin waxaa nagu maqaalo ah in ay jiraan shirar ay leeyihiin mas-uuliyiinta ururka ONLF dhinaca kalena wararku waxa ay sheegayaan in ay dhacayaan amaba ay socdaan shirar u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo ururka ONLF haddaba fikirkaaga ku aadan arrimahaas muxuu yahay anigu mar walba waan soo dhaweynayaa in la wada hadlo oo xaaladan in badan baa dagaalkana soo jiray dagaalkan qadiyadana waa dagaal wakti dheer soo qaatay oo isdhaxal reebay mar walbana u baahan in go-aan iyo xal siyaasiya laga gaaro marka waan soo dhaweynaya wax kasta oo wada hadalaho xal loogu raadinayo qadiyadaas muddada badan dagaalkeedu taagnaa dadkeediina iska rafaaday aad baan usoo dhaweynaya runtii waxaanan ilaahay u baryayaa inuu najaxo wadahadal kasta oo waafaqsan nidaamka iyo xaqa oo laga galo qadiyadaas cabdikariin muuse qalbi dhagax aad baad u mahadsan tahay su-aashayda ugu dambaysa guud ahaan ummadda soomaalida ee ka dareen celisay xarigaagii aadkana ugu faraxday soo dayntaadii cabdikariin maxaad leedahay ama aad kula dardaarmaysaa ama aad ka codsanaysaa waad mahadsan tahay su-aal fiican weeye dadka soomaaliyeed runtii iyadoon u kala hadhin ama shanta soomaaliyeed shacbigeedu ayadoona u kala hadhin waxay ka diidiyeen kelimadii halkii igaga dhacday nimanka odayaasha ay sameeyeen runtii aada iyo aad baan ula socday xaaladda inkastoon xilliyadii hore war badan ka haynin haddana waan ogaaday gaarka dadku gaaday dadka soomaaliyeed waa walaaladay aada iyo aad baanan ugu faraxsanahay sida ay igu hiiliyeen iyo sida ay ii garab istaageen waxaanan u celinayaa maxadaan wax soo koobi kara jirin ilaahay baa miisaankeeda qiyaasi kara ayaga iyo mas-uuliyaadkii gaar ahaan labada gole ee shacbiga soomaaliyeed golaha sare iyo golaha hoose magacyadan inta badan way iga dambeeyeen baan filayaa aada marka horena ulama haysanin laakiin ayaguna dareenkooda muujiyay dagaal badanna galay go-aamo waaweynna soo saaray aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen ilaa hadda iyo fiirada ay muujiyeen aniguna waxaan u ballan qaadayaa inaan ahaan doono walaalkood garab taagan oo ula dhaqmi doono si sinaan iyo cadaalad ah oo ka fayow qabiil beedalaysi iyo qof jecelaysi oo ii sinaan doonaan shacbiga soomaaliyeed iyo qof kastoo wanaagooda ka shaqaynaya salaantaydu ma aha mid dhammaan doonto laakiin waxay noqon doontaa mid weligeed taagan iyo inaan garab saa qof kastoo soomaaliya dhiban baan garab taagnahay kii xiran baan garab taagnahay kii baahan baan garab taagnahay kii ciil qabaan walaalkii hiil iyo ho la garab taagnahay marka dareenkaygu waa mid aan wax qiyaasi kala jirin aad markaa qalbigaaga kusoo dhacdana runtii waan maaragtay waan qiiroodaa aad baan isu bedelaa
marka dareenkaygaas oo sii socon doona insha allah. laakiin hadda waxaan leeyahay walaalayaal guuleysta, waxaana ilaahay uga baryayaa dadka soomaaliyeed ugu yaraan qalbigeygu siduu yahay qalbigooda in iyagana ilaahay ka dhigo oo u xaaran qof walba. hadday jiraan kuwa iga qalbi fiican oo iga maaragtay sawaabka iga dhow hadday jiraan, ilaahay iyaga iyo anigaba inuu ugu wanaagsan qalbigiisa inuu inaga wada dhiga qalbigeenna walaalowna. inahaasaan dheela. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax.